waxa uu ku bilaabay dhagaxaan uu meel tuulay iyo jiingad yar oo uu keligii gacantiisa ku dhisay. haddana waxaabay noqotay deegaan dhan oo loo dalxiis tago, mararka qaarna dadka xeebaha sanaa ku nooliba ay u soo xagaabaxaan. maxamed jaamac caawad oo ku magac dheer maxamed wejiyare weeye qofka aynu ka sheekaynaynaa. gacantiisa oo keliya oo aanay gacan kale wehelin ayaa uu ku bilaabay deegaankan baqla jabis ama wejiyare. keligii ayaa ku noolaa wakhtiyada qaar. intii deegaamaynteeda uu wadayna waxaaba uu ii sheegay in mararka qaar uu keligii u hoyan jiray dhul bahallagaleen ah, buuro iyo kaymo jiq ahna u badan. haddase nasiib wanaag qoysas badan ayaa kuna nool goobtii uu keligii dhisay. dadkuna wakhtiyada ay dul marayaan ay u yaqaaneen qof xanuun maskaxda ah qaba. waa reer Hargeysa, caasimadda Somaliland, wakhtiyadiisii carruurnimo ilaa dhallinyaronimo ku soo qaatay. waxa uu ahaa darawal ay hal mar maskaxdiisa ku soo dhacday inuu iskaga tago Hargeysa, beerna uu ka iibsado goobtan uu deegaanka uu ka sameeyey oo ku taalla inta u dhaxaysa deegaanka Karin iyo godka Tabca. laga dhaadheer ayaa uu gacantiisa ku buuxiyey. waddo raf dhagaxli ahna waxa uu ka dhigay dhul siman oo aan kala dheerayn. waxaan kula kulmay deegaanka uu isagu gacantiisa ku sameeyey maraan safar u ahaa maydh. waxaan ka waraystay sida ay u hirgashay inuu keligii oo aan hal qofna wehelin uu dhiso deegaankan, sababta uu magaca ugu bixiyey, xaaladdii adkaa ee uu kala soo dabaashay, goorta uu dhismaheeda dhammeeyey, iyo xogo badan oo ku saabsan sababta ku kaliftay inuu halkan cidlada ah deegaameeyo isaga oo ka yimi wakhtigiisii ugu badnaana ku soo qaatay caasimadda Hargeysa. waraysigiina dhex maray aniga iyo maxamed wejiyarena waxa uu dhacay sidan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaanba daawadayaal meel kaste oo daafaha dunida ka joogtaan kusoo dhowaada Gobonimo TV. waxa aanu kusii guda jirnaa barnaamijkeenii socdaalka iyo weliba la dalxiis Gobonimo oo la kulanay maxamed jaamac caawad oo isagu ah deegaanka aasaasaha deegaanka Geenya Jabis ama Baqla Jabis ama sidoo kale dadku soo yaqaanaan Amweji ama Maxamed Weji. deegaankan isaga aasaasay. deegaankani waa deegaan oo isagu keligii aasaasay. waxa xiiso gaar leh in maxamed jaamac caawad maxamed wejiyare uu ahaa nin ku soo barbaaray, ku soo kacaamay, kuna soo weynaaday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliya. intaas kadibna 1993kiina halkan yimi si uu deegaankan halkan uga aasaaso. isaga keligii ayaa aasaasay. ku soo dhawow maxamed Gobonimo TV. waxaan ku weydiinayaa deegaankan Geenya Jabis ama Baqla Jabis ama Amweji loo yaqaano, waxay u dhaxaysaa Xiramoodi iyo weliba Karin. waa deegaan geerigo-ana gaar ba adigu aasaastay, guryahaygiiba ku yaala. sidaad ku aasaastay maxamed? wallahi waxaan ku aasaasay dee si yaroo kartiyeelo ma ku aasaasay. meeshan waxa weeye meel adag bay ahayd, aan bannaan ahayn, meelna wax laga dhisan aan lahayn. marka waxa weeye anigu baa aasaasay, tacabkeedana anigu baa geliyey, ilaah bay la qabtay. goormada aasaastay? 1993 baan aasaasay. markaad 1993 aasaastay ma markaad magaalada Hargeysa ka timi? markaan Hargeysa ka soo wareegay. deegaankani ma deegaan aad dhul ku lahaydeen ba mise waa deegaan aad u aragtay inaad meel ka samayn karto marka? maya waxaan beer baan ku leeyahay meel kana dhow, beertay ku dhow. marka waxaan doonayay meel aan baabuurka mar haddaan darawalahay in meel aan dhigto baabuurka. marka waa meel aan anigu aasaasi weeye. meeshan dhismaheedu sidaad aragto wuxuu ka soo bilaabmay laagtaymka ugu yaraan ilaa 10 tallaabo ayaad soo aastay oo dhagaxaan iyo ciid aad ku soo aastay oo laag fog ahayd. iminkana meel fiican bay maraysaa. ma keligaaba waxaasoo dhan soo aastay mise ciid baa kula waday? keligayba waxaasoo dhan soo aastay, ilaahay baa la qabtay. sidee u soo aastay? waxa weeyaan dee maalinba dhagax baan soo ridayey, marba dhagax baan soo qodayey, marba ciid baan soo rogayey, mar dhagax baan soo gurayey. waxaasaan ku buuxilayey. marka sidaan haba u waday oo u buuxilayey baa ilaahay la qabtay. wixii hadday qabataa waad heshaa. hamigaaga hirgelin bay iga noqotayo hamigayga inaan meel ka samaysto oo dee meesha meel wanaagsan noqoto, lagu soo hirto, loo hoydo, lagu dhaxo, dalxiis loogu yimaado wanaagsan baan oo loo hoydo ayaan ka samay. wayna ii hirgashay. haddana waan wadaa. maxamed waxaan doonayaan ku weydiiyo, dadka intooda badan waxay isweydiinayaan deegaankan Geenya Jabis ama Baqla Jabis adiga aasaasa ka ah, magaca saad ugu bixisay? magaca Geenya Jabis ama Baqla Jabis way iga horeysay. weli boorkii waan samaynayaa haddeer, inkastay dee wejiyare ku magac dheer tahay.
maxamed weji ku dhamaga dheertahay laakiin geeyadii in Cabdulla Xasan halkan maraysi baa ku jirtay baa la geeyo saarna baa jabtay marka meeshii geeyadu ku jirtay baa la oran jiray ama baqash ku jabtay marka saas lagu bixiyo magaca ku ahayd markii hore adigu reer Hargeysa ahay Hargeysa ka soo ka timi deegaankaaga laakiin dhalashaan halka baad ka soo jeedaa goormaheed goorta Hargeysa iskaga timi halkan asaaskeeda goorma bilowday habarti markii habarti barco ayaan soo wareegay halkan aniga deegaankan waa deegaan aad u qurux badan dalxiisayaasha ku socda tabca ilaa mayd ku socda way soo maraan adaana aasaasay maxaad ku qabataa marka deegaankan waxaan ku qabtaa dukaamo ka furan haddii la koriyo meelo la seexda inaad tahay guryo badan bay leedahay reer xeebeed ku soo hayaamaan oo birkeedan ka sameeyay laba birkeed baan ka sameeyay ka soo darmeeyay dilaacday birkeedan ka sameeyay reer xeebeed ku soo hayaamaan oo halkan xagaaga yimaadaan bir dhown adigu tobnaad way ga dhaadhacayaan demeeshana waxaan doonayaa inaan sii kordhiyo oo udheel cunto ka furo dukaamada ka furo oo wax badbadiyo oo wixii kordhiyaan marka deegaankan aasaasay kaliya baad ahayd inta ugu badan waxa la yiraahdaa sidaan dadkan soo mareynay ku soo wareysanay ilaa inta naga horeysa ilaa buurahaas oo dhan waxa ku nool shabeel iyo harimcad iyo xayawaanaadka iska duurjoogta abaan laga waayin adiguna kaliya baad aasaastay halkaad seexan jirtay markaad aasaaskada waday والله waxaan seexan jiray marta gaari yar bawto gaariga dushiisa ma seexan jiray marna shirkiisa miska seexan jiray marna daaftaadii qof kale iyo wadana daafta qof la seexan jiray sidii gali geer jiraha marka waxa weeyaan bahalkuna bahal dadka ku soo booday dadiyana ma hayne xooluhu buur jiray wuuna joogay marka ana waa joogay ma saragtay marnaydu marna ismaarag baan mar arkay mid mar arkay oo markiina adigu marka dad mar aragto mar labaad maarkay deegaankan geejibis adigu aasaaskada leedahay deegaanka yaa kula ilaaliyo oo macnaha kula daryeela si aan dhirtii loo goynin oo waxa weeye loo dabar goynin dhirtii iyo duurjoogta kan ila jooga ee tuulada marka waxyaaba tuulada ila jooga ee wala nool ayaa ila ilaaliyo gubninkeeda iyo dirjaristeeda iyo dhibaato u geysanaya dadkaas ila ilaaliya ana gaar baan u ilaaliya dadka dalxiisayaasha ah ee kugu soo mar halkan halkii u badiyay aad bay u yimaadaan halkan iga waa tagtagaan marka gaalkii saacadu ila jooga sidoo wax soo waralay marka waxa weeyaan markuu arko laaga iyo quruxda iyo dhirta iyo hiilka iyo doog iyo war waa nooca horta meesha iska maraysa ma disho haday imka 2-3 sanadood 4 sanadood ay abaar tahay aan roobelin kameel kalaamidkeed waa noocaas taas uu qurbariyay maxay tahay sababtu waxa weeye dhirta ku badan dhirta aad ugu badan tahay dhirta waxa weeyaan qaarna waxay haysan kartaa abaarta iska haysan kartaa caleenteedu qaarna waa ka daadataa waxa weeyaan dhirta ku badan tobankii talaabo adigu ilaa 15 geed baa ku beeran sida uu timi deegaankan aad u aasaastay magaalada Hargeysa dib ugu laabatay dhowr goor baan ku laabatay laakiin Hargeysa aan joogi jiray waxay noqotay Hargeysa caasimad noqotay Europe ay noqotay goorma kugu dambeysay la 2005-2006 meelahaas ay ugu dambeysay marka aad qoyskaaga ama dadka kula degan ereyadan aad aasaastay ay doonanayaan khudaarta iyo raashinka iyo waxaba halkee ugu dhow ka soo qaataan dariiqana la maraa halkan ay wax soo maraan tamaandha qudrado dhan markay soo martaa neefka halka horteedu maraa kalluunka halkan uu maraa marka waxa weeyaa meesha dariiqa meel la marayo weeyaan waxa waliba wixii ceergaab ku socday wixii markuu socdaa horteeda maraa marka wax walba kana ka qabsada marka maxaad ka shaqaysaa marka laga reebo deegaankan dukaamo yar waxay ay ku yaalaan shaqahan marka iga hor aan ka soo joogayna dar walbaan ahayo dhaweeyaan kuwa dhaweeyaa ayaan waday dhaweeyaan waday madda man iska dhaweeyay waxaan waday fooqayna farajmay xasan iska roogana dhigan jirnay aad sirana saaxiib Allah naxariista saaxiib aan nahay arwadiis iyo la iibin jiray Hargeysa aan wada joogi jirnay saaxiib aan nahay Maxamed Xaaji Xiiri baa loo jiray marka waxa weeyaan adeerna marka magaalo weyn bay ahayd oo magaalo yar bay markaa bari horeyd magaalo yar bay ahayd laakiin hadda way weynaatay oo magaaladii wallahi hadarto waxaad ku shaqto garanaysa deegaankan geejibis adigu aasaaskada leedahay aad kaliya adigu bilowday ee lagagan aad waxa weeye buuxisay oo dhan qorshaad ka leedahay muxuu yahay marka qorshaha kale waxa weeyaan dalkayguna deegaankayguna inuu dagaal noqdo bilicli oo lagu soo hirto oo meel maxaa noqda dadkuna ku soo hirtaan wax laga heli karo kii seexalaya kii wax ka cunaya kii ku nasalaya kii maxay maraya inuu qofku yimaado oo meesha meel noqoto meel cidla iyo meel la sameeyay isku mid noqon maayaan magti
deegaan ahaan marka laga hadlayo dalxiisayaashu deegaanada noocan oo kale ah intooda badan baca iyo caagada iyo waxbay kaga tagaan oo dadku uma wacyigelin kama haystaan dhankii ilaalinta deegaanka idinku dadka ma u sheegtaan inay dadka dalxiisayaasha inaanay baca iyo deegaan iyo waxa aanay kaga tegin waanu sheegnaa tii halkan dhaweyd ayaa markii la isku yimi meesha intaasoo biyaabaa la keenay intaasoo sharaaba adigu waa la keenay qof walba de wuxuu kari karayey ila waa meel masiibo qaran baa dhacday wixii la keenay wixii waanu ururinay waxaanu ku ururinay qoladan dhirta iyo daaqa iyo annaga deegaanka iyagii wixii oo dhan baa ururinay hadday baca tahay iyo hadday wixiiba way tahay waa la qaaday ceergaaban waxaanu geynay meel karina loo qoday halkaas lagu gubay wixiiba waa ururinay tuulooyinka dhan waa ka ururinay halkii meeshii deegaanka wixiina waa soo ururinay hadday keenta lagu tuuray iyo hadday tuulada tahay dhirta ka baxda maxay u badan yihiin oo dhirtu kuma tiri karo aad iyo aad oo badan yihiin dhirtu waa badantay daybka ugu qaalisan dhirta daybka la yiraahdo ugu qaalisan dhirta nidaamka dowladnimo deegaankaagan iyo weliba deegaanada kale idinku xeersan marka laga soo baxay ceerigaabo maxaa idinka soo gaadha wallahi adigu wax badan nagama soo gaadhaan dowladda wax badan nagama soo gaadhaan dowladda wax badan nagama soo gaadhaan adiga hada yar marmar oo in yaro gaargaara yaro qorqorta wax yaro gaargaara qorqora oo mooyaane walaal halkaas aan jeedna tuuladaas aan yar sidna mooyaane anigu wax naga soo gaadha ma jiraan aragno waanu taayada waanu waxba kuma haysan halkaas daawadayaal intaasi waxay noogu eg waraysigii raay koobnaa ee markaasi kadiska ahaa oo markaasi aanu ka qaadaynay maxamed jaamac cawad oo ku magac dheer maxamed wajiere oo isagu ah aasaasaha deegaankan geenya jabis ama baqala jabis oo u dhaxaysa karin iyo waxa weeye iyo xiramoodi marka deegaankan isaga aasaasay isaga keligii markuu aasaasay keligii ahaa isaga buuxbuuxiye laga badan iminkana isagii qoyskiisii iyo dad lamidihii ay degan yihiin oo waxay u dhowdahay inay goob dalxiiseed iyo deegaan dalxiiseed ba ay noqoto barnaamijka intaasaynu ku eegi doonaa intaan mid ka lamid a ku kulmayna aan idinku dhaafno sidaas iyo nabadgelyo